السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتوا عنا وناكسن قبل سيتهين عافمات كنا كورما حرجينا عافمات قبتين الحمد لله أنا هذا عافمات قبع وأنا في عنها مانتا أيام صولنا باللابتي وهاد حلقنا إلى هلا جورجي وحق مع هذه ساعة بركهر الحمد لله marka hore guriga ii diyaarsanay iska tago hagaagsaday soo markaa imaaday daaqadihii xirxirtay gurigan kuleysa ku shitay kadibna cuntada ayaan dabka saartay soo ma sha Allah carruurteena way ciyaarayaan soo waxaan go'aansaday inaan muuqaal inii soo duubo muuqaalkaas oo muuqaal iyo dhiirigelina insha Allah taala haduu Ilaahay yiraahdo sida ogtihiin bariyahan buu maqnaa waxaan ku maqnaayay Tabori soo Sweden aan jiray carruurteeda ayaan fasax geeyay hal wiigo fasax ayaan haysanay laakiin iskuuladii bari ay dib noogu bilaabanayaan insha Allah taala haduu Ilaahay yiraahdo haddaba gabdho waxaan soo dhigaa muuqaalo kala duwan waxaan soo geliyaa dhiirigelino waxaan soo geliyaa hooyada YouTube-keyguna inta badan hooyada Soomaaliyeed ay ku saabsan yahay wax qabadkiisu inta aragteenba haddaba marka iyadoo sidaas tahay ma sha Allah ayaan waxaan rabaa inaan maanta ana inii mahad celiyo oo indho aad iyo aad u mahadsantihiin inaad matqaana maalin kasta garabkayga taagantihiin maanta muuqaalkeenu wuxuu daaran yahay go'aan qaadashada gabdho badan ayaa socotaday erigaasna marar badan ugu soo noqday xamdi abay go'aan qaadashada ka soo hadal qofka bini'aadanka sidoo go'aan ku gaari karaa taas way marka taan maanta halkan soo fariistay oo rabo inaan labo iyo hal ka dhaho horta inta aan muuqaalkayga u gudagelin maalin kasta gabdho cusub ay ugu soo biira waxaan leeyahay bayal soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada YouTube-kini waa YouTube hooyooyinka Soomaaliyeed tan kale oo rabay inaan sheegana waxay tahay kontonkii kun wax yar ayaan looga dhimay insha Allah taala haduu Ilaahay yiraahdo maalmaha soo socdo waan gaareynaa tan kale marka go'aan qaadashada qofka bini'aadanka sidoo go'aan ku gaari kara noloshu say go'aan ku gaari kartaa soo qofka bini'aadanka isku bedeli kara soo qofka bini'aadanka go'aan ku gaari kara taas waa ka soo hadlaaya insha Allah taala mar rabina muuqaalkayga isku dhex daro tan oo isbedelka nolosha waa ka soo hadlaaya haduu Ilaahay yiraahdo laakiin hadda waxaan ka hadlayaa go'aan qaadashada maadaama gabdho badan ay iga codsadaan inaan soo sameeyo muuqaal go'aan qaadasho talabaad waxa markasta weydiinaysan xamdi noloshaada sababta ku bedeshay waxyaalaha ku dhaca nooga sheekay horta waxyaalaha aniga ugu dhacay oo ay qabsado mar rabaan qof uga sheekeeyo ma rabaan arrinkaas ka hadlo laakiin waxyaalaha markaan isbedelay nolosheeda in isbedesho keenta maalin ayaan la hadli doonaa insha Allah taala one day haduu Ilaahay yiraahdo laakiin tan hadda ay soo hor fariistay ee raba inaan inii sheegaa waxay tahay matqana go'aan qaadashadu nolosha qayb weyn ayuu ka yahay inuu qofku yahay qof go'aan qaada kara laakiin go'aan marka qaadanaysid marxalado badan ayaa ku soo wajahaya qofkuna go'aan hore kama gaari karo qof arkay lagu dhahay naagta ma go'aan gaarto ayada go'aan xun ayada go'aan jiraan sidaas ma aha dadku way kala go'aan adag yihiin go'aanada gabal marka aad qaadanaysid maalin dhawta ergaswan ka dhawaajiye go'aanada gabal marka qaadanaysid ayaga ayaa waxay kugu noqonayaan xanuun oo dhibaato kugu noqonayaan marka go'aan marka qofka bini'aadanka qaadanayo muxuu baahay horta go'aanka adoo xanaaqsan aad qaatid kaas go'aan ma noqdo wuxuu hadhow waxa laga yaabaa inuu qofku ay dib ka shalaayo oo dhaho wallahi go'aankan waa ku degdegay wallahi inaan go'aankan qaatin way qofka bini'aadanka markuu xanaaqsan horta go'aan ma gaari karo noloshaada markaad xanaaqsan tahay go'aan ha gaari marka faraxsan tahay go'aan ha gaari labadaba ma fiicno laakiin marka aad go'aan qaadanaysid oo rabtid inaad go'aan gaartid ama qof kula nool ha ahaado ama qof mataqaana asxaabtaada kamid ah ha ahaado ama noloshaada horumarkeeda ha ahaado maanta waxaan ka hadlayaa waxay tahay nolosha horumarkeeda soo qofku noloshiisa ku bedeli karaa horta si noloshaada ku bedeli kartaa bini'aadanku waa laba nooc dad naftooda ay ka adag yihiin oo naftooda dhima gacanta ugu jirto dadna nafta ayaa ka adag marka nafta ayaa hogaamisa marka waxa ayaduna muhiim ah oo rabaa inaan ka soo hadlo say ku noqon kartaa qof asagu naftiisa hogaamiya ogaa hogaanka naftaada markay gacantaada ku jirtid cid kasta oo bini'aadan waad ka guuleysanaysaa markastana waxaad noqonaysaa qof xasiloon markastana sorry carruurtan la hadlaayay markastana waxaad noqonaysaa qof guuleysta laakiin waa marka aad naftaada ka adag tahay waa marka aad taqaanid naftaada la dhaqankeeda qofka bini'aadanka inuu la dhaqanka naftiisa bartana waa wax aad iyo aad u wanaagsan haddaba go'aan qofku uu qaadan karaa laakiin go'aanka waxaa ka muhiimsan inaad qaadatid marka horeba inaad noqotid qof naftiisa asaga ay gacantiisa ku jirto oo naftiisa maamusha oo go'aamadiisa qaadan kara weligaa go'aan ha gaarin adigoo careysan weligaa go'aan ha qaadan adigoo maskaxdaada daashay hadda waxbaad wadaa wixii waa wadee waa u dul qaadanee waa u samree waxaa laga yaabaa marka ugu dambeeyo adigana maskaxdaadii dhimatay jirkaaga uu dhintay dhibaatootay
kabacdi waxaa laga yaabaa inaad go-aan ka gaarto oo tiraa waxaan go-aan ayaan ka gaaray. go-aan qaadashadu wuxuu qurux badan yahay qofku markuu caafimaad qabo. inta waxaan aad go-aan ka gaaray aysan ku dhibaateen, aysan ku duleyn, aysan mataqaanaa dhibaatada iyo xanuunka ay kuu geystaan aadan biri la noolaanin oodan noqonin qof dhibaatooyin la nool. baliis inta meel fariisatid jawigaagoo degan marka horena aan 2 ragco salaada dukatid oo salaatul istifaarada salaada la yiraahdo aad u fiican tahay. ilaahay habeenkii barisid kadibna go-aan qaado. go-aankaada aad qaadato inuu khayr kuugu jiro hadana ilaahay salaad uga duko oo waxa dhahdaa ilaahay haduu go-aankaygu khayr yahay waafaji. marka inteena badan xogaa waxaan noo maleysaa gabdhaheenu inay huufaran yihiin dhibaatooyinka waan aruursanaa xaaladu markay faraha ka baxdo ayaan go-aan qaadanaa. qofka bini'aadanka ama qof ha ahaado ama noloshaada ha ahaato ama horumar aad gaaraysa ahaato go-aanku degdeg kuma fiicna oo go-aanku markasta wuxuu fiican in deganaansho lagu qaato. laakiin go-aankuna ma fiicna in la qaato markii la duluubo oo la isku dhabuqo oo la isku dhibaatoodo oo qofkaanu maskaxdiisa dhibaatooto ama marka mataqaanaa horumarkii aad gaari lahayd aad ka daahday kadib xoogaa inaad go-aan gaartidna habsad ayay kugu noqonaysaa. laakiin waxaan ku dhihi lahaa go-aanka aad qaadanayso ha noqdo go-aan adigoo degan aad qaadatay. yowsana noqonin go-aanka aad qaadanaysid go-aan adigoo maskaxda ka daalay ee rarana noqdo. laba waayaan kala dhigno. marka arti noloshaada inaad bedeshid inay time adigu aad rabtay aad naftaada bedeli kartaa oo go-aankaada qaadan kartaa. laakiin markii problemyo kugu heeraaraysan aad rabtid inaad iska xalisid way ka duwan tahay. taasi waxay u baahan tahay go-aan inaad tadoo degan go-aan qaadatid, go-aankaasna ilaahay ku tala saaratid kabacdina aad gaartid. laakiin go-aanka horumarka oo qofku rabo naftiisa inuu ku bedelo marka hore ma tahay qof naftiisa gacanteeda midig ku jirto, ma tahay qof naftiisa ka adag, mase waxaa tahay qof naftu ka adag tahay oo naftu hogaamiso. hadaa tahay qof naftiisa ka adag inaad go-aan gaarto qaraar kastuu kugu yahay waad gaaraysaa waadna qaadanaysaa laakiin way xanuun badan tahay. qof markaan ku iraado abay go-aan gaar go-aan qaado aniga ayaa dareemaya go-aan gaaritaanku xanuunka uu leeyahay because qofku inuu go-aan gaaro way adag tahay. ogaaw inta badan waxaa go-aan qaata inta badanna waxaa guuleysta qofka degan. noqo qof marxalad kasta ee la kulanta deganaasho uga baxa. ha qaadan go-aan degdega adigoo marxalada ku jira. laakiin markaa marxalada iska baxdid maskaxdaadu ay degto go-aan qaado. go-aanka aad qaadatana isla marka hal maalin go-aan ha ku qaadanin. xoogaa meelo badan wax badan ka fiiri. nolosha waxay ku qurux badantay in meelo badan wax badan laga fiiriyo. xoogaa go-aan qaadashada dhanka guryaha ah ayaa lagu fudud oo qofku markuu gurigiisa duma ka bacdi waxaa la leeyahay wallaahi guriga iga dumay go-aankaas waan ku fududaaday wallaahi go-aan xun oo ahaa. marka shaydaanka iska naara go-aankana waxaad qaadataan adiga oo maskaxdaadu degan tahay. go-aanka horumarka oo naftaada aad ku horumarinaysid kaasi wuxuu kaaga xiran yahay inay naftaadu gacantaada ku jirto. laakiin sidee horta naftaadu gacantaada soo gali kartaa? sideed u noqon kartaa qof naftiisa ka adag oo naftiisa asaga hogaamid badan waxaa jira naftoodan ka adkeen ama saaxiib ha hogaamiyo ama qof kalena nool ha hogaamiyo. qof waxa arkay maanta dhan qof bili aadan rabo leh inuu ku dhaganaado qofkaasi kalsoonida iyo naftiisa ka adkaashihiisa ayaa gacantiisa mid ka baxday. marka wehel ayaa wuxuu arkaa inuu maanta dhan ama farxad ka raadiyo qof bili aadana ama saaxiib ha ahaado ama nin ha ahaado ama qof kale ha ahaado. haddaba muuqaal ayaan kasoo sameyn doonaa sida qofka bini'aadanka uu naftiisa uga adkaa doono. maalinta aad noqotay qof naftiisa ka adag waa maalinta aad guusha dhabta ee aad ku horumar leed aad u wajahan tahay ee aad saartay. laakiin maalinta ay naftaadu noqoto inay ka adag tahay ee sida doon mataqaanaa kabtan la-aan aad maanta markab kabtan la-aan aad maanta dhan badda aad mataqaanaa aad kor hayhaabtid maalinba meel cusub ku dhacdid ogaa waxa ku dhibaateynayo waa naftaadooda ka adkeen iyo kalsooni darro aad kala kulmaysid mataqaanaa cashirkaaga yimaado ka adkaasho la-aanta aad naftaada ka adkeen. haddaba muuqaalkayga dambe waxa aad ka faa'iidi doontaan sidoo qofka bini'aadanka naftiisa uga adkaa kara asagu oo u noqon karo qof go-aan leh, qof wax diidi kara, qof wax yeeli kara, qof naftiisaba ee gacantiisa mid ku jirto oo asagu kaamirada ka tag qof naftiisa gacantiisa ay ku jirto oo asagu awoodo inuu naftiisa maamulo. taas ayaan ka sameyn doonaa muuqaal ayadana. laakiin tan hadda maanta inay soo hor fariistay waa go-aan qaadashada. go-aan qaadashadana waxaan u sheegaa gabdhaha Soomaaliyeed go-aanka ha qaadan markii aad dulowda kadib ee wixii aad ku soo dulowda iyo stresska iyo madax xanuunka aad ku jirtay oo kugu qaato sanado badan inaad ka soo bagstay. laakiin go-aanka waxa aad gaartaa marka aad u aragtid inuu ku habboon yahay. go-aan kasta oo gaaraysidna Ilaahay tala saaro weligaana waxa maskaxdaadu ay dareemayso
samee insha Allah tacaala haddaba haddaad halkan ila soo gaartay waxaan kaa codsanayaa inaad like-ta muuqaalka aad siisid haddaad cusub tahana gacmo furan kusoo dhawaaw haddaad hore ila joogtana muuqaalka leegtiisa 50,000 ayaan u soconaa iska xil saar sidaan 50 ku gaari lahayn maanta anigoo daalan oo safar ka imaaday oo caruurteeda la soo safray oo meesqa dabka ay saaran tahay ayaan soo hor fariistay oo go'aan ku gaarin oo YouTube-kayga kala go'in maadaama aan gabdho badan oo Soomaaliya dhiirigelin u ahay wallahi gabadha waxay soo qortaa muuqaalkaagu markuu soo dhaco ayaan rajo dareemaa gabar kale waxay meel dhigtay gutili si kastoo uu ooyo muuqaalada markaan daawado rajo weyn ayaan dareemaa taas ayaa waxay anigu kaliftaa inaan iga maqnaa karin oo rabo inaan maalin kasta gabar walaashay ka farxiyo ee hore u socoto haddaba maanta muuqaalkeena wuxuu daarnaa go'aan qaadashada muuqaalka dambe inii soo sameey doona waxaan ka dhigi doonaa sidoo qofku naftiisa u adkaa karo waayo waa muhiim in qofku naftiisa ka adkaado adigu maxaad marka iyo awoodaa inaad igu dhiirigelisid like-taada iyo subscribe-kaada muuqaalkan hal sii share garay asxaabta la wadaag inta muuqaalka muuqaale ku kulmeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh